xisbiga kulmiye ayaa xalfad soo dhaweyn u sameeyay ururada dhaqanka wadajir iyo dalada kaaba. xalfadan oo ka dhacday hotel New Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda kaamiyka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka ururada ku soo biiray. ka soo digaroganay xisbiga wadani waxaan xisbiga wadani kaga nimi qabyaalad nin quursi nin jeclaysi gowstambeed cid gaar taliso xisbiga kulmiye ee maanta uu hogaaminayo murashaxana uu ka yahay mujaahid muuse biixi cabdi ayaan codkayaga siinaynaa. waxaanu ka soo digaroganay xisbiga wadani oo aanu in badan ka mid ahayn hase yeeshaanu aragnay inuu himigiisu iyo himiladiisu tahay inuu dalka ku wado Soomaaliya. xisbiga kulmiye kuwaana dooran turbaan beena dugsi qabyaaladeed iyo dareen adduun waxaanu ku dooranay go'aanka halyeynimada iyo himilada hoggaanimo ee uu leeyahay. waxaanu ku talagalnay inaanu siino codkayaga cudkayaga muuse biixi cabdi. waxayna dhankooda ka hadlay madaxda iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer ay ugu horeeyaan gudoomiyaha kaamiyka Jaamac Xaaji Axmed, gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Xasan Mataan iyo xubno kale oo tiro badan waxay yiraahdeen shantii doorasho ee waddanka ka dhacday xisbiga kulmiye hogaaminayay dhammaantood balanteenu waa 13 November iyo insha Allah taala xisbigeena guuleysta iyo codkeena aynu ku hubino sanduuqa xisbiga kulmiye aynu ku dooranno jaamac inaynu ilaalino ammaanka inaynu ilaalino anshax wanaagga inaynu si xor iyo xalaal u tartanno inaynu si wanaagsan maradaynu lixajacada waddanka aynu leenahay aynu u turno dadkeena waa codkeena aynu ku ridno xisbiga kulmiye oo aynu ku dooranno musharaxa mudane muuse biixi cabdi sow maaha. xisbiga kulmiye waxa uu ka dhigay gobolka Togdheer wacdaro aad iyo aad u cajiiba oo uu kaga badiyay xisbigii wadani. lama idaan seegin idinku waa guulaysateen xisbiga kulmiyana waa u guul inaa codkiinna iyo cududiinnaba ku soo biiriseen aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. dalada kaaba iyo ururka dhalinkaab iyo ururka wadajir xisbiga kulmiye ayay si officially caawa ula midoobeen. dhalinyaro aan ku arkay social media kuwaasoo sheegtay inay iscasireen oo xisbiga ay ka tirsanaayeen. waxaan leenahay inaanay waxba ka jirin inay suuq samaysi iyo maaragtay taytal raadin iska tahay. waan idin soo dhaweynaynaa soo dhawaada xisbigii kulmiye ku soo dhawaada xisbi talada wax ku yeelan doontaan qorshaha wax ku yeelan doontaan go'aanka wax ku yeelan doontaan cidda wax xagaysa ka mid noqon doontaan ayaan idinku soo dhaweynaynaa. waxaan u sheegayaa xisbiga wadani ee gobolka Togdheer waa in la ixtiraamo xafiisyada xisbiyadu ay leeyihiin oo aanay madaxdoodu xafiisyada kulmiye waxba aanay yeelan haddii kale waxa weeye factadu calayha bimithli ma tada calaykum waa lagu tacadeeyay hadday taa joojin waayeen. waxaan soo dhaweynayaa ururada mugga iyo miisaan kale ee qiimaha iyo qaadaha badan. waxaan idin leeyahay soo dhawaada xisbiga kulmiye waa xisbi waddanka lixajaclo badan kale waa xisbi ay soo tijaabinay waa xisbi dhalinyarada doorkeeda siiyey waa xisbi iminkana barnaamij siyaasadeedkiisa uu ku xusan yahay. Axmed Jaamac telefishinka caalamiga RTN.